السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. daawadayaashiida idil ahaantiinaba dhammaantiina waa salaamantihiin. maantana halkaani waxaan ka doonaynaa inaynu ugu hadalno inuu ku falanqeyno iskuulka Abarso kaasoo ah iskuul aad iyo aad loo xiiso iyo loo hadal hayo. haddaba intaynan u gudagalin cashirkeena iyo intaynan u gudagalin wararkeena iyo informationkeena, fadlan haddaa ku cusub tahay channelka ha hilmaamin inaad subscribe inoo saarto, like-na inoo saarto siday dhiirigelin inoogu noqoto. haddaba halkaani maanta waxaynu kusoo qaadan doonaa gabar ka mid ah gabdhaha dhigta iskuulka Abarso, taasoo barteeda Facebook kusoo qortay in jaamacadda iskuulka Abarso uu ka jiro waxyaalo aad iyo aad u foolxun iyo fuxshi lagu hayo. gabadhani magaceeda waxaa lagu sheegay inay tahay Aniso Yusuf Nuux oo ah ardayad dhigato iskuulka Abarso. waxay barteeda Facebook kusoo qortay, waxaan doonayaa inaan xaqiiqada idin sheego, xaqiiqada iskuulkayga inaan idin caddeeyo ayaan doonayaa baytri. waxaa jira wax badan oo la buunbuuniyay, laakiin aniga maanta waxaan doonayaa inaan warbixin aad iyo aad u dhammaystiran inaan idinka siiyo iskuulkayga. waxay leedahay gaalaysiin ma jirto oo qofkii la dhahayo diinta Christianka qaado, diinta Masiixiga qaado la dhahayo ma jirto. laakiin waxa jira waxa waaye diinta si toos qaada laguma dhahaye, waxaa lagu dhahayaa diintii baa lagugu sheegayaa oo lagu barayaa qaab indirect ah oo dadban. sidoo kale waxay tiri ka warama haddii niman gaalo ah oo gaal cadaan ah ay hablaha yaryarka ay wataan waqtiyada dalxiis si ay dalxiis ula qaataan, sidoo kalena sawirro ay la galaan niman gaalo ah oo gaal cadaan ah, sidoo kale iyagoo hablihii cawradoodii iyo timahoodii banaanka ay taalo. waa shay aad iyo aad looga xumaado, waana fuxshi oo u dhow in qofkii uu diintii ka baxo. haddaba inkastoo ardaydani dhigato iskuulka Abarso ay badankoodu qarka u saaran yihiin inay fuliyaan waxyaalaha gaalada ay ka damacsan tahay, ayaa waxay gabadhani inoo sheegtay in iskuulka ay ka jirto fuxshi aad u weyn. fuxshigaasoo ah in gabadhii la dhahayo cinjirka galmada qaado haddii aad doontid, cinjirka galmada qaado iyo kaniiniga lagu yareeyo misana lagu ciribtiro uurka cun lagu dhaho gabadhii. waa shay aad iyo aad u xun, iyo in qofkii musqulihii iskuulka oo si qarsooni ah looga soo qaaday photo looga soo qaaday, ayaa waxayna tusinayaan in iskuulka sharci gaalo uu ku dhisan yahay. haddaba haweeneydan aad u jeedaan ayaa waxay iskuulka ka tahay maamulo. saa darteed ardaydii iyo hablihii baa waxaa lagu amrayaa inay qaataan cinjirada galmada si aysan wax uur ah u qaadin markay doonaan inay isku galmoodaan, ay sidoo kalena cunaan kaniinka. cinjiradani galmada iyo kaniinigani waxaa laga helaa iskuulka dhexdiisa, kaasoo uu ku yaalo maqaasiin. iskuulka dhexdiisa baa waxaa ku yaalo maqaasiin laga helo cinjiradani iyo kaniinadani. sidoo kale hablaha waxaa loo siiya kaniinadani iyo cinjiradani si lacag la-aan ah oo free baa loo siiyaa, si aysan ugu dhibtoonin. waana soo dhaweyn loo soo dhaweynayo, diinta lagu soo dhaweynayo. macnaheeda halkaani waxay ka muuqataa in qofkii diintii lagu soo dhaweynayo, diintii kiristaannimadii lagu soo dhaweynayo, oo diintii lagu soo dhaweynayo naf iyo maalna lagu bixinayo. waa ujeedaa gaalada maanta si inoola dagaalamayaan, waxaana ka xun oona ka daran gaaladaasi ninkii soo dhaweeyey. macnaheeda waxaa waaye ninkii gaaladaasi soo dhaweeyo inuu raali ka yahay in ficilkani kiristaannimadani diintani ay ka dhalan doonto, dadka badankoodna qaadan doonaan diintan kiristaannimada ah. maxaa yeelay haddii dadkii culimmadoodii iyo dadkii knowledgeable ka ahaa
oo aqoonta qaatay hadday dadkii kulli qaataan diinta Christianka, waxaa cad in dadkii jaahiliinta ahaa inay ku dayanayaan dadkan diinta Christianka qaatay. waxaan kusoo afmeeraynaa mawduuceenan halkan baan kusoo afmeeraynaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi